مرة شكري عبد السلام يا عبد الله مرة حرنت علمي باريستا هيكسي dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha leh qof walba meeshuu fadhiyay iyo mansabku uu leeyahay ku salaamaya أنا waxaan aaminsanahay kulamada noocan ah laba shayba inay kor u qaadi karaan koow isbarashood inay keeni karaan waxa laga yaabaa afarta qof ee hortiina fadhida inaydan hore u aqoonin iyagana aysan idin aqoonin marka isbarasho inay dhacdo la isbarto mid kalena waa bareero wax badan aniga 20 sano mikrofoonka fadhiya amaanta waxa ii kordhay waxyaabo fara badan oo saddexdan qof afkooda uu ka soo baxay iguna cusba cabsalaan iyo marwada iyo cabdullaahi iguma cusbo cabdullaahi dhowr iyo 10 sano wada shaqeynayay cabsalaan kuliig baan ahayn marwa shukri iyadana oo muddo dheer saaxada warbaahinta ku jirtay laba shay aan rabaa inaan ku taageero qodobka waxa cabsalaan wuxuu yiri kulay galbeedku ka yimid cilmiga uu leeyahay iyo khibradii uu galbeedka kala yimid buu ku saleeyay wasaaradda warfaafin xilligeeda waa laga soo baxay adduunyadan casriga maanta way yar tahay inaad maqasho wasaaradda warfaafin oo ka mid ah hay'adda dawladda marka waa all system mana qabo dawladda Twitter ay dadka fariin ku gaarsiin kartaa Facebook wasaare khayr lagama sheegin raadi muqdisho telefishinka dawladana lagama sheegin madaxweynuhu baxaya Twitter ku soo qoray khayraan magacaabay cid walbana way ogeyd marka adduunyadan casriga wasaaradda warfaafin lama jaan qaadi karto qodob kale oo Cabdullaahi aan aad u jeclaysto jira oo haddana laga hortagin hadalka iga gunta haddana laga hortagin Facebook iyo qoladii kale ay timi jirtay ka qatarsan niman YouTube lay la dhaasoo baxay oo ilmaha ku qabsada YouTube lay maanta tigi camera haysta 20 daqiiqo oo aflagaado iyo naxli iyo been iyo qurun soo qori iyo soo duubaya waxba kama jiro ninka sheegayna habeenkii kaas u daawani nimankaas ba ahan kaliya dalka iyo dawladnimada jinsiga Soomaaliya qatar ku yihiin maalin maanta ahna kelmadda la dareemi doona qodob kale shukri ay ka dhawaajiso drop out-ka waxa keenaya waxa weeyaan أنا رأينا التلفزيون فرتو وحن كل كيجي ما حاجة صوت لي كرارت ننا أدرج على ستايل كبير setting agent ده وما جرى setting agent محول جدا أنا هدف كيجا محويه هاي شكرا يا نويري عبد الله يا نويري وريا ما قا كاميرا وبهنا قدرنا الدرب نوقع بتداها إن بيشنا وأنا شنكم كأنه بلدوين الله وركضون قبل يمتى كان وصل الراب حبيت جبوتي لا بتجي جيا لا بكون عن ما انتهى ما لهم كقرة لا بكون لا ببلد كتب بجت كاي وصحري فإذا الروسي marka hadafka marka hore loo furayaa lacag qodob kale oo aan ku soo xirayo waxa weeyaan TV-yada Soomaalida waa taas aan hadda sheegay iyo shukri dawlad higsiyan ka codsanaya fadlan kulamada noocan ah oo waliba la sii sheegay noo badiya cilmi buu keenaya cilmiga ma dhamaado khibradu ma dhamaato isbarashadu ma dhamaato waad maasantiin salaadii lagu tiraan ka gaarno ku jirtay qof kasta uu iska hadli karaa waa run xuquuqda asaasiga ayaa tahay in qof kasta uu hadlo oo marka dimuqraadiyadda laga hadlayo dalka meelaha dadka xorriyadda haysta oo kale maxaa ka waday in shuruud lagu xiraa xilligan ma ahan shuruud la'aan ayay qofku hadli karaan waxaan rabi lahaa inaad noo sii jilcisho hadalka waxa ka waday dastuurka markii la qorayay oo xaqa cabiraadda ra'yiga lagu qorayay wax shuruudo ah oo lagu attach gariyay oo la yiri qofkii wax fiican sheegi kara kaliya hadli kara lama oran inta qaab ee ra'yiga lagu cabiri karo waa lagu sheegay qofka haddii uu ra'yigiisa cabirayana darbiyada la hadlimaye wuxuu la hadlayaa dadka hay'adaha يعني آلadaha warbaahintana waa medium waa ra'yigiisii sidoo u gaarsiin lahaa dad kaliya waa wadadii uu dadka ku gaarsiin lahaa weeyaan wax kala maaha waa in this case waa tool يعني sidii aniga iyo dadka aan u wada xiriir lahayn waa qalabkan oo kale weeyaan haddaan rabo ra'yigayga ilaa iyo Mareykanka inaan ka rido qalab baan u baahanahay haddaan rabo inaan qolkaan la hadlo qalab baan u baahanahay haddaan rabo inaan qof la sheekaysto qalab mucayan baan u baahanahay marka xaqaas dastuuriga ah ee dastuurka ku qoran in yani aad adiga shuruudo ku xirto oo aad tiraahdo in shardigaas kugu xiran meesha kuma jiro waxa ku soo haray hay'adaha warbaahinta ayaga xaq waxay u leeyihiin in qofka intay khibradiisa fiiriyaan yiraahdaan wariye waa istaahisha inaan noqotid iyo ma istaahishid taas waa qaabab kale iyo hawlo kale ku xiran tahay teeda kale
annagu ma ogtahay meel vacuum oo cidlaa kama abuurnin adduunyaan ka abuurannahay adduunyada nala midka ah dadka ilbaxay dadka hormaray dadka yacni gaaray horumarka waxay ku gaareen hal wax in ay sameeyeen wax sax ah waxa saxda ah si aad u samaysidna waxaa u baahan tahay xog go-aankaaga tayadiisa waxa ay la eg tahay xogta aa haysid saxaafaddana waa aaladii xogtaas ku siin lahayd waa tii reer baadiyaha dadka ah wax bari lahayd waa adduunka waxa ka socda kuu sheegi lahaa waa tii kuu sheegi lahayd Lubnaan say dhibka uga baxday waa tii kuu sheegi lahayd Rwanda say dhibka uga baxday waxaasoo dhan marka waxna waa wax uu qofka xaq u leeyahay taas in lagu xiro condition ma aha waxna waa awood ay iska leedahay saxaafadda oo hadda telefishinka XYZ kuma khasbi karo aniga inuu iqaato waa inuu ku qanca aniga khibradeyda laakiin waxaan dhihi karnaa wariyaha waxaa saaran sida xaqaas uu u leeyahay waxaa saaran war bacdama aa og tahay in aad xaq u leedahay wax uusan madaxweynihii uusan heli karin oo uusan guri kasta madaxweynaha caawa lama hadli karo laakiin ninka wariyaha caawa inuu guri kasta ama raadiya dhex yaalla ka hadlo oo qof kasta saameeyo la hadli karaa wuxuu garan karaa hadalkiisa saameynta ka imaan karta waxaasoo dhan marka waa inaad ku qalabaysan tahay aqoontii necessary-ga ahayd ee aad qof kasta wax ugu sheegi lahayd waa inaad ku qalabaysan tahay marka yacni taasna waxaa go-aankeeda gaari kara hay-adda aniga isiinaysa fursadda aan dadka kula hadlo marka ma aha xuquuqahaas inay isku kacaan waa mahadsan tahay saaxiibkii dropout ayuu ka hadlay su-aashaana waxaan weydiinayay maama shukri inta badan warbaahinta maxalliga ah ee dalkan ka shaqeeya ama Soomaaliya markaan eegno wariyaasha la qaata ama dadka ka shaqeeya hadba waxaa la raadiyaa qofka mushaarka ugu yar ku shaqeeyo taasi marka saameyn noocay ay ku yeelan kartaa tayada iyo weliba warbaahinta doorka ay bulshada ay ku yeelan lahayd maama shukri ayaan jeclay su-aashaas inay iga jawaabto salway isagana su-aal kale aan rabo inuu iga jawaab waxay tahay mucaaradka dalka ka jira sida dhanka Soomaaliya markaan eegno Cabdiraxmaan Abshakuur iyo qolada kale ee saaxiibada yihiin fursado lagama siiyo SNTV telefishinka qaranka waxaana ka hadlaynaa dib u dhiska dalka iyo weliba mideynta shacabka haddii mucaaradka cod ay ku yeelan waayaan warbaahinta dowladda lagu guulaysan karaa inaan shacabkii la mideeyo sidoo kalena dib u dhiskii dalka laga shaqeeyo ama guul laga gaaro su-aashan kale aan rabo madaxa BBC da inaan weydiiyo Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq iraalabo waxa ay tahay waxaa soo badanaya warbaahinno kala duwan waxaad moodaa qof walba jeebkiisii hooga hukuusma in warbaahin uu furanayo la eegaynin tayada warbaahinta isla warbaahinta maxalliga markaan kusoo laabto waxaa la yidhahdaa agenda setting ma lahan keliya waxa la sameeya waxay tahay warar lasoo turjumay ayaa dadka loo gudbiyaa marka yacni warbaahinta horumarka dalka ama bulshada ay gaarto xoogga lama saaro haddii sida ay kusii socoto horumarka lagu taamayo ama la rajaynayo mar walba meel isugu imaado laga sheekeynaya sidaa ma lagu gaari karaa warbaahintan maxaa ka dhigay keliya in warar la turjumay wargeysyada kala gedisan caalamka ama la qaata su-aasha waxay ahayd dhankaya waxaan ka hadlaynay saaxiibkii wuxuu lahaa dadka wariyaasha ah badanaa waa drop out si kale ayaan u dhigay waxay tahay wariyaasha la shaqaalaysiiya hadba waxaa la raadiyaa qofka ugu mushaarka yar ku shaqeeya gabadha udhib waa maasanta salaman waa lagu fahmay marka way kaaga jawaabay السلام عليكم دمانتين السلام عليكم وعليكم السلام waxaan weydiinayaa Cabdullaahi mawduuc waxaan qabaa oo meesha aan laga dhawaajin oo ah qorida af Soomaaliga BBC da maadaama madaxa aad tahay af Soomaaliga laga qoro yaa ka mas'uula su'aalaha way bateen laba qodob oo kaliya ama saddex qodob inaan kusoo koobo ugu horreyn soo dhaweyn saaxiibkeen Cabdisaan wuxuu keenay qodob ama uu ka hadlay fikir ah macnaha in wax qualification aysan ku xirnayn in qofka journalism-ka ah ama uu ay tahay shaqada kaliya qof markuu soo kaca biri uu hore ka geli karo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii saas tahay midda dastuurka marka laga hadlo horta oo dastuurka aan ku qornayn baa tiri laakiin wadamada horumaray aan ka soo qaadana Canada ama UK waxay leeyihiin unwritten constitution su-aasha aan dhageysano walaalayaal waxay leeyihiin unwritten constitution ama qornaynba laakiin waxaa jira universally accepted guideline oo isku ogol yahay oo la raacsan yahay oo warinimada ku xiran marka haddii qofku uusan wadinin wax qualification ah sidee ayuu maxaa ku rahday uu kaga taxadiri karaa ama uu ka ilaalin karaa waxa la yiraahdo principle of journalism five principle of journalism oo ay ka mid tahay dhexdhexaadnimada inuu ilaaliyo nabadda
in waxyaalaha dhibaatada keenaya uu ka fogaado taas waxaa weydiinaya cabdisalaan midda xigta waxaan rabaa inaan weydiiyo cabdullaahi cabdisheekh oo ah waxaa jiro cabdiqaadir dubad waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa jiro wadamada hadda maanta lagu tirinayo inay adduunka ugu horumarsan yihiin ka mid a although systemka ay wataan ama governance systemka uu yahay autocratic sida North Korea China ama Russia waxay ku guuleysteen in ay xadidaan ama ay controlaan social media-ga waxyaalaha lagu soo qorayo social media in la controlo taas possible ma ka tahay contextiga Soomaaliya si guudna Africa maxaa yeelay dhibaatada ugu badan waa meesha naga haysta maanta waa Africa social media ka jawaabaan saddexdan waqtigana waa nagu dhacay cabdisaaq atoosna waan siin doonaa wuu noo soo